السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن دا وضيال كسو دوادا وررك عالمك واد سيتو صاح كلا سعطان شعبك ميديا حرونتي صدحي مقالة نيروبي وحانا وركا إذين شيغيا أنيقو مصلاح أبو كرحاجي قضبضا وركا يقادكم مقلي دونتان أيا وحا كميدا دولة الصومالية أيا ديب وحاي أفريسا قرومو عبسيدا الشباب أوغيد لوغو حري قدها مقالة مقدشو khilaafka ka dhaxeeya dalalka qaliijka oo saameeyay gurmadkii la siin jiray agoonta qaraxii Zobe al-shabaab oo mar kale toogtay 5 nin oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen jaajuusin iyagu ku dhex jiray madaxda maamul goboleedyada oo afayeen u magacaabay siyaasi reer Muqdisho iyo Sacuudiga oo wajahaya cunaqabateen aad u daran kadib markii senatarada Mareykanka ay go'aan degdeg ah ka qaateen warkii oo fidsan دور بلود ayaa waxa ay ka soo wareegatay kadib amaro ka soo baxay al-shabaab oo lagu mamnuucay in lagu ciyaaro garoomada yaryar ee kubadda cagta inta badan dhalinyarada Muqdisho ay ku ciyaari jireen maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaca ka qaaday in dib loo furayo qaar ka mid ah garoomadii kubadda cagta ee ay hanjabaadaha ku xireen al-shabaab garoomada la xiray ee la sheegay in dib loo furayo ayaa waxa hanjabaado u jeediyay al-shabaab kadib markii ay ku xireen bixinta dhaqaale qaar ka mid ah milkiilayaasha garoomada ayaa horay u bixiyay dhaqaale ay ku xijeeyeen al-shabaab halka kuwa soo haray ay dib u furayso dawladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu sugi doono amniga garoomada kubadda cagta ee la furay waxa uu Tuulax tilmaamay in garoomada dib loo furay ay ku yaalaan degmada Yaaqshiid intooda badan kuwa oo xirnaa bilihii ugu dambeeyay sidoo kale ciidamada ammaanka ayuu kula dardaarmay inay sugaan amniga guud ee degmada gaar ahaan garoomada ay dhalinyarada ku ciyaaraan maalinkii iyo waliba xilliyada habeenkii si kastaba ha ahaatee al-shabaab ayaa mararka qaar waxa marar kala duwan ay ku soo rogaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho kuwa oo shacabka oo baqdin ka qaba al-shabaab ay dhaqan geliyaan maalin ayaa naga xigta in sanad uu jirsado qaraxii xasuuqa ahaa ee ka dhacay Zobe ka oo ay ku nafwaayeen dad ka badan 400 oo ruux tira intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacmeen iyadoona musiibadaasi qof walba oo Soomaali ah niyadiisa aysan ka go'eenin khilaafka dalalka qaliijka ayaa lagu soo waramayaa in saameyn xooggan uu ku yeeshay gurmad loo fidin jiray agoonta qaraxii Zobe iyadoona ay arintan faahfaahino dheeraad ah ka soo baxayaan sanad guuradii koowaad ee qaraxii ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya waxa ka harsan bari oo sabti ah oo kaliya iyadoona dunida inta badan siyaabo kala duwan ay uga hadleen sida ay u arkaan xasuuqaasi qaraxan oo loo adeegsaday gaari xamuul ah ayaa waxa ku leeday dad shacab u badan kuwaasi oo tiradooda lagu sheegay in ka badan 500 oo qof halka dhaawaca uu gaarayo ilaa 1,000 qofood guddiga gurmadka qaranka ee ismiidaamintii Zobe ayaa sheegay in marka laga soo tago dhimashada ay jiraan dad kale oo nolol iyo geeri lagu laayahay kuwa oo lagu tilmaamay in ka badan 200 oo ruux guddigan oo loo aasaasay inay gurmad gaarsiiyaan weerarkii Zobe iyo midkii ka dhacay hotel Naasa Hablood ayaa sheegay in wadarta guud ee caruurta ku agoontooday weerarkaasi ay gaarayaan 2360 caruur 1398 ka mid ah caruurta wuxuu guddigu sheegay inay qaangaareen halka 962 ka mid ah aysan qaangaarin ayna u baahan yihiin daryeel ay ka helaan dawladda Soomaaliya taasi oo guddiga ku qasbaysa inay dadaalo dheeraad ah sameeyaan gudoomiyaha guddiga Cabdullaahi Maxamed Sharwac ayaa tibaaxay inay isku dayeen sidii ay ugu heli lahaayeen caruurtaasi cid ka faala qaada inta noloshooda ka dhiman alla ka sukow xilli madaxda dawladda ay arintaasi horay u balan qaadeen hase yeeshee Sharwac ayaa cod dheer ku sheegay in uusan waxba ka soo naasacadaanin arintaasi isaga oo ku nuuxnuuxsaday inay gabaabsi tahay dhinaca dawladda kaalmadii uga imaan jirtay caruurtaasi sidoo kale gudoomiyaha ayaa daboolka ka qaaday in khilaafka dalalka qaliijka oo maamulka farmaajo lagu eedeeyay inay la safatay qadar uu qayb ka yahay sababaha ay kafaala qaadka u waayeen caruurtan agoonta ah ee waalidiintooda ku waayay qaraxii halaaga ahaa ee soo ka dhacay 14 Oktoobar sanadkii aynu ka soo gudubnay 2017
aniga ahaan waxay ila tahay in caruurta ay ku waayeen cid ka faala qaada gaabis dhinaca dawladda ah iyo khilaafka khaliijka maadaama dhammaan hay'adihii noo yimid ay halkaasi ka socdeen ayuu yiri gudoomiyaha khilaafka khaliijka oo u dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinac ah iyo Qatar oo xayiraado lagu soo rogay ayaa sidoo kale saameeyay siyaasadda dalka xilli maamulada qaar ee dalka ay la safteen xulafada go'doomisay caasimadda Doha dowlad goboleedyada ayaa ku eedeeyay madaxda Villa Soomaaliya inay la safatay Doha iyada oo baal martay mowqifkeedii dhexdhexaadnimada xiisadda khaliijka iyo ay u janjeerto dhinaca dalka Qatar waxaa muuqanaysa in gabi ahaanba shacabka Soomaaliyeed sanad kadib ay weli si weyn u xasuustaan xasuuqii ka dhacay Zobe kaasi oo ahaa xasuuqii ugu dhimashada badnaa abid ee ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya haddaba sanad kadib dadkii ay waxyeelada kala duwan ka soo gaartay Zobe qaraxii ka dhacay waxa ay dib u xasuustaan sidii ay wax u dhaceen waxaana ay ugu baaqeen guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan isla markaana ay u midoobaan cadow kasta oo weerar ku ah midnimada ummadda Soomaaliyeed al-shabaab ayaa waxa mar kale ay toogasho ku dileen 5 nin oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen jaajuusiin kooxda al-shabaab ayaa galinkii dambe ee shalay meel fagaara ah oo ku yaala degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe waxa ay ku toogteen 5 nin oo ay ku eedeeyeen arrimo basaasnimo qoraal ka soo baxay shabaabka oo ay ku baahiyeen warbaahintooda ayaa lagu sheegay in 5 nin ee la toogtay ay u shaqeynayeen sirdoonada dawladda Kenya iyo kan dawladda federaalka ee Soomaaliya shabaab waxa ay sheegteen in ragga ay ku dileen Saakow ay qirteen dambiyada lagu soo eedeeyay ee ah inay u basaasayeen dhinacyo shisheeye sidaa daraadeedna waxa ay sheegeen in la marsiiyay waxa sharciga uu ka qabo ragga la dilay ayaa magacyadooda waxa ay kala yihiin Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed Haaruun Cabdiraxmaan Cumar Caliyow Jiino Nuur Maxamed Yunis Madkeer Cabdishakuur Xasan Xuseen maalin koor ay ahayd markii sidaan oo kale al-shabaab ay degmada Jilib ugu toogteen ilaa 5 nin oo kale oo ay ku eedeeyeen inay u shaqeynayeen sirdoonada Mareykanka iyo Ingiriiska madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa ay magacaabeen afayeen cusub oo ka soo jeeda caasimadda Muqdisho golaha iskaashiga maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa waxa ay sameysteen afayeen cusub oo si rasmi ah uga hadli doona afkooda waxaana laga dhigay siyaasi caan ah oo ka soo jeeda caasimadda Muqdisho warqad ka soo baxday madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ahna gudoomiyaha golaha madaxda maamul goboleedyada Cabdiweli Gaas ayaa xilka afayeenimo ee madaxda goboleedyada ugu magacaabay Cabdullaahi Sheekh Xasan Gaas ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya Cabdullaahi Sheekh Xasan uu si rasmi ah ugu hadli doono afka golaha isaga oo ka shaqeyn doona danta dawlad goboleedyada Cabdullaahi Sheekh Xasan oo hadda ah wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ah siyaasi aad looga yaqaan caasimadda Muqdisho waxa uu ka soo jeedaa mid ka mid ah beelaha caasimadda Muqdisho ku nool waxa uu horey u soo noqday afayeenka golaha siyaasadeed ee beelaha Habiye laabada xilkan loogu magacaabay waxa dad badan ay isweydiinayaan ujeedada laga leeyahay iyadoona tani ay tahay mid guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ay si weyn u hadalhayaan dawladda Sacuudigana waxa ay qarka u saaran tahay inay wajahdo cunaqabateen aad u ballaaran kadib markii sanadka Mareykanka ay soo saareen war degdeg ah koox senataro Mareykan ayaa ku cadaadinaya madaxweyne Donald Trump inuu baaritaan ku sameeyo maqnaanshiyaha saxafiga Sacuudiga u dhashay ee Washington Post wax ku qoray jiray taasi oo hogaamin karta cunaqabateen la saaro saraakiisha iyo hay'adaha Sacuudiga warqad ay madaxweyne Trump u direen Arbacadii ayaa senatarada waxa ay adeegsadeen xeerka Global Magnitsky Act ee la sameeyay sanadkii 2016 iyaga oo ku baaqay baaritaanka kiiska Jamal Khashoggi oo aan la aragtan iyo markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul senatarada ayaa warqadooda waxa ay u qoreen sida tan maqnaanshiyaha saxafiga Sacuudiga ee wax ku qori jiray Washington Post Jamal Khashoggi waxa ay muujinaysaa inuu dhibane u yahay xadgudub weyn oo ka dhana xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ay yiraahdeen senatarada warqada ay u direen madaxweyne Trump waxaan filaynaa in marka aad go'aan gaarayso inaad maskaxdaada ku hayn doonto akhbaar kasta oo arintan la xiriirta ayna ku jiraan saraakiisha ugu sareysa dawladda Sacuudiga madaxweynaha ayaa laga filayaa in uu sanadka
ugu soo jawaabo muddo 120 maalmood gudahooda isaga oo gaari doona go'aan la xiriira in la soo rogo cunaqabateen rasmi ah iyo in kale. Aqalka cad ayaa sheegay in Arbacadii xubno sarsare oo kamid ah maamulka ay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman kala hadleen maqnaanshaha Jamaal Khashoggi kaasi oo saraakiisha Turkiga ay aaminsan yihiin in lagu dhaxdilay qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taala Istanbul. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale sheegay in uu la hadlay madaxda ugu sareysa hoggaanka Sacuudi Carabiya isaga oo yiri ma aqbali karno in wariyaasha lagu sameeyo sidan cidna in sidan la yeelo ma ogolaan doono. Xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka ayaa waxa uu yahay mid aad u wanaagsan iyadoona laga yaabo in maalmaha ama toddobaadyada soo aadan haddii saxafigan uu sii maqnaado oo aan lagu sheegin nolol iyo geeri toona inuu aad u xumaado xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac u dhaxeeya iyadoona sanadka haatan ay wadaan cadaadiskii ugu ballaarnaa oo ay ku saarayaan madaxweyne Donald Trump inuu cunaqabateen rasmi ah ku soo rogo saraakiisha ciidan iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka Sacuudi Carabiya. Markana su'aasheena maanta waxa ay ku saabsan tahay daawadayaal waxaa muuqata inuu aad u sii xumaanayo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dalalka Turkiga iyo Sacuudi Carabiya iyadoona dalka Turkiga uu yahay saaxiib aad ugu dhow Soomaaliya isla markaana wax u qabtay sanadihii ugu dambeeyay. Haddaba dhawaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa go'aan dhexdhexaadnimo ah oo aan lagu qanacsanayn ay ka qaadatay xiisadda diblomaasiyadeed ee soo kala dhex gashay wadamada Khaliijka iyadoona ay dawladda Soomaaliya u muuqato inay garab istaagtay dawladda Qatar oo go'doomin lagu sameeyay. haddaba haddii uu xumaado xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo Sacuudiga Soomaaliya door intee le'eg ayaa ku haboon inay ka qaadato ayay tahay su'aasheena maanta. si aad fikirkaaga noogu soo dhiibto dhanka iyo WhatsApp-ka nambarada shaashada idinkaga muuqda ayaad nagala soo xiriiri kartaan. guud ahaan waa naga intaa warkii caalamka oo aad kala socoteen shacabka tube xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. waxa warka idin sheegayay anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. tani inteenu ku kulmi doono warkan kan xiga waxaan idinka tageynaa sida iyo nabadgelyo nooli kulantay. amaan Allah.